runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan guddiyada horumarinta ee caasimadda degmooyinka caasimadda aan la wadaagno qorshaha 120 cisho ee u horeeya muddaxuleedka maamulka cusub ee loo doortay caasimadda Hargeysa Mayor Engineer Cabdirasaaq Maxamed Faarax Wiilwaa iyo Mayor ku-xigeen Engineer Axmed Jaamac Haddi Midee runtii labada engineer ama labada mayor waxay ka mid ahaayeen golaha deegaanka waa labadii engineer golaha ku jiray waana labadii engineer inta badan shaqooyinka hawlaha guud isaga sareeyay iyo suuqa waaheen shantaas sanaba shaqo bay gacanta ku hayeen niman waa aragnimo aqoon durugsan u leh xagga engineerinka iyo horumarinta wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dibadda iyo gudaha dalkaba ka shaqeeyay dawladda hoosena shantii sanaba inta badan xildhibaanada active-ka bay ka mid ahaayeen marka waa sababta keentay inay 120 cisho ay yidhaahdaan bal annagu maadaama 5 sano ogeyn Hargeysa meelaha ugu sii daran hadday tahay connectivity-ga kobaca dhaqaalaha meelaha nolosha bulshada wax weyn ka bedelaya inay markaa iyagu ay runtii ay daraasadeeyaan waxa weeyaan waa arrin soo fududeysay qorshahan maanta idin wadaagi doono qorshahan kuma koobna markaa dhinaca kaabayaasha ugu dhaata laakiin sektor fara badan buu runtii u taabanaya 120 cisho ma badna waa 120 badan min kasoo gudbinay sanadkan laftiisaba laakiin waxaan rajeynayaa 120 ka cisho qorshaha ay la yimaadeen maamulka cusub inuu noqon doono mid idinka iyo guud ahaan bulshada caasimaddu ay ku tiirsan doonaan ilaahayna waxaan ugu baranaynaa inuu ku asturo runtii hamiga ay la yimaadeen iyo hiigsiga iyo qorshaha cad anigu xitaa markii hore waxaan ku malaha budgetka anigu halkaasaan ka xisaabiyaa numberska laakiin waxay yidhaahdeen sources kalaan ka doonaynaa sida bridge-lo kale sidii maayirku la wadaagay waa wax markaa magaalada wax weyn ka bedeli doona innaga waxaa lanaga rabaa duco garab istaag iskaashi insha allahu tacaala markaa ana waqtigiina ilaalinaya waxaan ku soo dhawaan doonaa inaan markaa prestige-ka toos u gudagalo dankooda ku horeyna tiirka koowaad oo ah maamul wanaagga qorshahooda waxay bilaabeen oo imika socda in qiimeyn guud lagu sameeyo dhammaan waaxaha iyo degmooyinka caasimadda waxaa dib u eegis lagu samayn doonaa qaab dhismeedka maamulka dowladda hoose Hargeysa oo imika structure-keenu waxa weeyaan 10 waaxood 10 agaasin 9 degmo jira madax xafiiseedyo jira madax bannaan structure noocaas ay loo degsan isaga laftiisa in reform lagu sameeyo ayaa isagana qayb ka ah waxa ka mid ah xoojinta iyo casriyeynta nidaamka cabashooyinka waxa la casriyeyn doonaa insha Allah tacaala 120 cisho gudahooda in cabasho kasta oo Hargeysa ka jirta nooc walay tahayba ay markaas si fudud oo transparent ah ay u soo gaari karto Allah ka u sareysa waxa iyadoo ka mid ah in la xoojiyo marka kulamada waaxaha iyo degmooyinka iyo bulshada guud ahaan waxa iyadoo ka mid ah hirgelinta nidaamka qiimeynta shaqada iyo shaqaalaha labadaba waxa iyadoo la xoojin doonaa adkeynta isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii dowladda hoose Hargeysa ay awalba ay dagaal weyn kula jirtay ugu dambeyn waxa la xoojin doonaa marka daahfurnaanta iyo kor u qaadida adeegyada bulshada guud ahaan xagga nadaafadda runtii waxa la xoojin doonaa kormeerka shirkadaha sidoo kale qabno Hargeysa waxa ka howlgala shirkadaha qashinka gura 5 company waa solidka qashinka adkaa ah hal company oo liquidka ba jira iyo mid biomedical waste runtii isaguna qaabilsan at the same time qashinku adduunyadu waxay la dhigaysaa inuu resource yahay ilaa imika waxaan dagaal kula jirnaa ururintiisa qaadistiisa iyo disposalkiisa laakiin qorshaha imika waxa ku jirta in markaa segregation lagu sameeyo la kala saaro isaga laftiisa markaa resource ahaan loo isticmaalo la iibgeeyo xashiishka markaa reuse recycle maxay loo gelayaa iyo inta soo hadha maxaynu ka soo saari karnaa haddii energy tahay iyo wixii la midka markaa teknolojiyada casriga oo la adeegsanayo exercise baa bilaabmay imika oo isagana insha Allah tacaala in qashinka laga faa'iideysto oo il dhaqaale oo Hargeysa ku soo kordho uu noqdo isagana qayb ka ah waxa runtii ka mid ah in markaa nidaamyo casri ah isaga taas ay naga filan adeegyada bulshada maxaa tangible ah ee 120 cisho laga qaban doonaa runtii waxa farxad ah guud ahaan horta degmada 16 cisho ugu challenge badnayd oo iyada marka hore dhulka dhibaato ka taagay oo inta badan dhaqaale la'aan ugama hadhin degmooyinka kale laakiin dhulka mar walba caqabad ka soo baxaysay
maamulkan cusub ay muddo ay kooban wax ku guuleysteen meeshii laga dhisay degmada Lixlaad ka jiro inay gacanta ku dhigaan at the same time xarun degdegis meel laga dhiso oo u gurman karta suuqyada suuqa labaad ee caasimadda gobolnimo iyo idaacadda inta ku taagsan iyadana runtii in markaa dhulkiisii la helo oo labada meelood runtii ku guuleysteen waa sababta keentay markaa boqolaal ka hesho maadaama lacagtiina wax la hayo oo dadka laftooda contribution-kooda ay horeba diyaar u ahaayeen dhulkiina yimid labada xarumood ayaa ku jira qorshaha 120 ka shaqo Ilaahay raahdo waxa ku jira booliis oo iyaduna runtii kulay marka dawladda saarkiisa waxay aad xoog u saartay inay ballaariso security facilities ka caasimadda marka meelaha ugu daran saddex meelood baan niyad ku haynaa marka iyaga la eegi doonaa oo degmooyinka kamid ah halka ugu daran baa 120 ka shaqo laakiin sanadkan qorshe wuxuu yahay guud ahaan in la wada gaarsiiyo ruuxa booliis meelaha ereyooyinka halista ku yeerjirto waxa kamid ah in laba iskuul kamid ah diirar loo sameeyo waxa kale oo kamid ah afar kalena in marka dayactir lagu sameeyo 120 ka shaqadooda iyo afar xarumood oo caafimaadka ah oo xarumada in hoos yimaada iyagana runtii kulli agaasima soo finalize gareyn doona iyagana afar taana dayactirkooda lagu sameeyo saddex ishaaro oo iskuisi iyagana runtii laga hirgelin doono iyo guud ahaan kungeed oo lagu beeri doono harkiisa inahaas waa ereyooyinka 120 ka cisho targetka u ah maamulka cusub inay gaaraan ilaahay waxaan ka baryaynaa in runtii ilaahay qorshooga hirgeliyo waxyaalo wax badan ku nolosha bulshada iyo adeegyada bulshada ka bedeli doona hadii ilaahay raado shaqooyinkii kala sidoodii ayay runtii u soconayaan waxa iyaguna garab socota in markaa long list degmooyinka baahidooda iyaguna ay runtii waaxda qorsheynta iyo agaasimayaasha gacanta ku jiray iyaguna ay runtii ay wadaan 120 ka cashoonka 3 ka shaqaale shaqeynay oo waxa la shaqeynay wadooyinka la doortay in la soo daraasadeeyo la qiimeeyo la ogaado maxaa ku baxaya shaqo fiican baa runtii socotay habeenii maalinba ilaahay waxa ka rajaynaa markaa inaynu runtii aynu ku guuleysano vision-ka qaybta infrastructure-ka waxaan uga bixi doonaa agaasimaha wadaad guud walaalkay maxamed ismaan waxaan xusayaa marka laga yimaado wadooyinkii maayirku carabka ku dhuftay inay iyaduna garab socoto mashruucii weel bank oo isaguna 3 kiiloomitir ay guud ahaan degmooyinka caasimadda ay ku jiraan 5 degmo oo 150 maro wadada Alhuda oo iyaduna ah degmada Maxamuud Haybe wadada Qalax degmada Axmed Dhagax Koodisto Kamay oo iyagana Sancaani 2 kiiloomitir IDP-gaas ugu jiro iyo bridge isku xidhaya markaa labada degmo ee Koodisto Kamay iyo Gacmo Dheere run ahaantii mashruuca xagga dambe ugu tagi doonaa agaasimaha ugu baxaya agaasima ku soo dhaw waxaan ku bilaabayaa degmada Ibraahim Koodbuur laba mashruucba way saameynayaan mid waa wadadan oo mashaariic aynu hore u soo sameynay oo wadadan Xaraawre markay tagto isgoyskii total sii soconaysa haddana wadadii gaafana xagga dabarka dambe ka maraysa aynu dhisnay in markaa wax ka taraysa oo iyadana wadadii weyneedna inaad si fudud ugu xidhmi karto wax ka taraysa wada abaa ka mid ah mashaariicda waxa weeyaan markaa waa wadada masaabiirta oo runtii iyadoo dhererkeedu kooban yahay haddana qofku markuu marayo uu dareemi karayo mushkiladii markaa leedahay arinta kale waxa weeye wax badan culayska Koodbuur wax ka taraysa waa bridge-ka Gacmo Dheere iyo Koodisto Kamay isku xidhaya qofku markuu wadada ammaanka maraya ee ka dhaxaysa Gacmo Dheere iyo Koodbuur inuu markaa u talaabo waxa fudud koonfurta u talaabo markaa culays fara badan ayay ka dulqaadaysaa laakiin degmo ahaan mashruuca ku calaamadsan oo mashruuca almost waa 900 mitir ama kiiloomitir 100 marka insha Allah dhammaan biyo mareenadiisii iyo wax walba uu yeelanayaa waxaanu dhameystir noqonayaa shaqo labadii sano u dambeysay aynu soo wadnay degmada ku xigta haddaan qaato waa Gacmo Dheere marka inta badan reer Gacmo Dheere waxay odhan jireen waanu cusubnay waana la dhaafaa marka doorkan maamulka cusub waxa la odhan karaa oo kun marka dhalinyarta yiraahdo qofka libaax baa lagu dhuftay Gacmo Dheere doorkan libaax baa lagu dhuftay bridge-na waa loo dhisay hadii la yiraahdo wadada dheer ee basku mara ee State House-kana waa loo dhisayaa runtii waa laba mashruuc aad u waaweyn marka wadada State House-ka oo dhererkeedu 3 kiiloomitir ku dhow yahay waa 2 kiiloomitir iyo 700 biyo mareeno fara badan leh ayaa runtii iyadana loo dhisayaa oo kharash badan ku baxayo
waddadaasi markaa de waxay wax ka taraysaa waynu dareemi karaynaa kobcii dhaqaalaha ee degmada iyo guud ahaan magaalada waxbay ka taraysaa isku xidhkii waxbay ka taraysaa oo iminka waddada miinka ah ee number 1ka mooyaane ee waddooyinkii kale oo dhan tanaa number 2 u noqonaysa waddada labaad ee la maro noqonaysa sidoo kale waxaa mara waddadan adeegii dee waxaan u jeedaa public transportigii gaadiidkii dadweynaha mara halka gaadiidka dadweynuhu maraana mudnaan gaara bay leedahay haddaynu ku xigsiino degmada Koobistonka May degmada Koobistonka May iyo gacma dheeraba waxay runtii nasiib u yeesheen inay laba bridge helaan mid waa kan maamulka cusub oo dhismihiisa bilaabayo midna waa mashruuci kale marka horeba World Bank ugu jiray ka talaabayay halka la yiraahdo 100 jire kana waa kii ka sokeeyay ee wadadan degmada hormartaaba halka ay dooxa ka talawdo kaga beegnaa marka mashruuca ku jira waxa weeyaan kow in bridge-ka loo dhiso number 2 in wadada marka bridge-ka dul maraysa ee ku xidhmaysa wadada kale Koobistonka May in iyadana la dhameystiro degmada Axmed Dhagax iyadana wado marka cabir ahaan eegto kooban laakiin runtii muhiimada aad u weyn leh ayaa iyadana maamulka cusub u qorshay insha Allah in 120 ka cashay ka fusho waa wadada Cakaara iyadana almost 700 mitir ah wadadaasi marka waa wado marka eegto degmada iyo isku xidhkeeda waxa weeyin ka taraysa caqabado badan bay kulay leedahay oo way dhisantay waxa laga yaabaa in waxyaalo badan oo sharci darro ay ka dhexismeen laakiin runtii maamulka cusub waxay diyaar u yihiin in waxaana lala dhilgareeyo laga baneeyo la diyaariyo wadada 120 ka casho ay ku bilaabanto ku dhamaato insha Allah maxamuud haybe iyada halkan waxa ugu jirta wadada jameecada iyaduna runtii wado aad u burbursan degmadana aad muhiim uga oo markaa imika marideeda ay adag tahay almost waa 2 kilomitir biyo mareeno bahra badan bay leedahay qofkii garanaya waa meel laaga iyo wada jeexjeex iyo wada biyaa marka iyadoo runtii kharash fara badan baa ku kacaya inta waxa uu dheer degmadan isagana waxa dhameystirmaya oo 120 ka casho ku dhameystirmaya hadii la yiraahdo bridge-kii jajabka waa ogeydeen kulay imika maayirkeena cusub ah markii horeba gacanta ku hayay oo golaha deegaanka u qaabilsanaa waa la inaga caawinay laakiin dadiyadii imika waa tan isbedesho qoladii inaga caawinaysa iyagoo bridge-kii dhameystirin ayay ka tageen markaa imika hawshiisa already waan diyaarinay isaguna inuu dhameystirmo oo la maro 120 ka casho ayuu ku dhex jiraa wadada jabaacaduna biidni Ilaahi tacaala way dhismaysaa ku xigta waxa weeye degmada Maxamed Mooge markaa sidii aan sheegay waxa jirta qaralahaasi ee bridge-ka ay shirkadda Dahabshiil Group dhistay wada ka tagta dayrka markaa dayrkiisa dhex marto ayay ku dhamaataa wada kale dawladda hoose soo dhistay oo shiraaqle ka timaada xagga shawdada shiraaqle labadiiba markaa imika halka dayrka afkiisa ku go'an wadada in la soo wado sayradii la keeno ayaa markaa qorshaha ku jirta waa wada 800 mitir wadadaas laakiin waxa ku lamaan oo ay leedahay iyaduna bridge yaro kooban oo isagu kan weyn ee gacmo dheer iyo Koobistonka May u dhaxeeyaan ahayn laakiin still isaguna maadaama meeshu meel aad u jilicsan oo aad u dhib badan tahay bridge baa laga dhisayaa bridge-kaas marka uu yartay waxa laga yaabaa 800 ilaa milyan inta u dhaxaysa inay ku kacdo marka waa dareemi karaysaa lacagtaasi 1 kilomitir oo wada bay dhisi lahayd dad xagga wadada ka eegto laakiin wax badan ayay runtii dadka u soo kordhinaysaa waa tii aynu lahayn ilmaha iskuulka kama tagi karo oo kama talaabi karo marka haddii in badan ay halka ka cabanayaan oo danguud halka kaga luntay balorta anagu intii taalkayga inay ka soo talaabi karaan dantii guud hadaan iskuul iyo xanaana uga dhisnayn ina xaqiiso ka ay ka dhisnaayeen oo soo talaabi kartaan inay idin fudeediyaan insha Allah dawladdu iska shaqeynaysaa waxa ku xigta degmada Macalin Haaruun iyadana markaa bridge yaro kooban isaguna oo aan bridge dhameystiran ahayn laakiin buundana ka weyn ayaa iyaduna waxay qasab noqonaysaa in laga sameeyo laagta ku taalo Hodan Hills walkii aan sheegay imika marka Hodan Hills joogto halka xanaanadii saldhigii iskuulkii halkii ku yaalaan haddaad ka xigto bari wax yaro 100 mitir uma soo talaabi karaysid imikana tuug baan uga soo talaabi karay roomarku jirna waaba laago hadalkeeda badaa marka iskuulkii oo imika arday aad u fara badan dhigataa meesha ku yaalo dawladda hoose dhistay saldhigii dawladda hoose dhistay ku yaala xanaanadii baa ku taala ummadda markaa way kala xiran tahay iyadana markaa in wadada Hodan Hills imika jirta iyo wadada ka leexata ka amaba halkan maxaa la yiraahdaa Hyundai-ga baabuurta shirkadda Dahabshiil ku iibiso wadada halka ka leexata iyo inay isku xidhmaan wadada Hodan Hills bridge-kaasna dhismo
ayaa iyadana insha Allah tacaala boqol ilaa taka casho qorshe ka mid ah markaan xusila waxyaalaha inta badan bridge-yada way bilaamayaan laakiin kuma dhamaanayaan inta iyadana niyadda lagu hayo laakiin wadooyinku inay noo dhamaadaan ayaa qorshe u yahay insha Allah gacan libaax degmada gacan libaax iyadana kulli halka sawir ka muuqato inuu wada garanaynaa iyo imka xaaladeedu siday tahay waa imaaraadkii marka qolada halka imaaraadka in badan baa kulli laga qaylinayay laakiin may fulin marka biidnillaahi tacaala iyadana qorshuhu wuxuu yahay 120 kan cisho inay ku bilaamato kuna dhamaato iyada lafteedu waa wado kiiloomitir ka yar oo 900 mitir ah laakiin biyo mareen aad u fara badan ayay runtii yeelanaysaa waa wado caqabadeedu aanay yareen iyadana oo laba waxba isu raaco meesha biyo fadhiisina iyo dadkoo 7 mitir wadada mooyee intii kala dhistay degmada 26 juun kullu mashruuca ugu weyn ku jira iyada waxa weeye in degmadii ay dhisanto iyadana kullu halka waxaan xusi lahaa structure-ka dawaa structure weyn ka degmada loo dhisayaa 120 cisho isaga ku dhiiso kuma gabagaboobayo laakiin inuu dhamaado progress fiican uu sameeyo inuu bilaamo horumar fiican laga gaadho oo meel wanaagsan gaadho ayuu qorshuhu yahay marka kow taasa ka number 2 xagan wadooyinka in iyadana wadadan road number 2 oo aynu hore u dhisnay ayaa haddana waxa jira qaybo ka dhex maqan oo wadadii oo samaysan adoo marayunba saad u socoto galaysaa meelo qaba qowsayna in iyadana isku xidhkeeda la dhameystiro wixii biyo mareen ay u baahan tahay loo sameeyo ayaa qorshuhu yahay halkaas sawir ka muuqato kale waa shacab mool halka imika halka ka muuqata markaad marayso waa dareemi karaysaa marka mushkiladeeda marka haddaan soo koobo 120 ka cisho waxyaalaha ay maamulku qorsheeyeen inay qabtaan kow dharka wadooyinka inoo fulaya waa 9.86 almost 10 kilomitir wadooyin inay dhisaan inay 3 bridge oo laba yaryar midna ka weynad dooxa waahan laga sameeyo in la dhiso biyo mareenada wadooyinkaas ay leeyihiin marka ka sameysmaya dhinacyada ka raacaya almost waa 1 kilomitir ku dhow 785 mitir kalfartiyada box kalfartiyada wadooyinka kala duwan ku jira waa xawiyaan waa hal sidoo kale goobaha marka ay biyuhu wadada kaga talaabayaan shababka aynu sameyn doono iyaguna waa 820 marka runtii marka aad imka lacag u bedesho waa runtii waa mashaariic aad u culus laga yaabo marka degmo u fiirsanay yaraada laakiin waqtiguna ku xisaabtama waa waqti aad u kooban 120 ka cisho marka waxa qorshu kale yahay in wax mashaariicdii waaweynada inta mudaxiraad ka harsan la fulin lahaana in gudiyadii lagala fadhiisto baahidii la ururiyo qorshahoodii la sameeyo laakiin inta aan la fadhiin intan laga sii shaqeeyo